iyadoo heer bilow ah ay marayso doorashadii xubnaha golaha shacabka Soomaaliya ayaa waxaa durba soo baxaya eedeymo ay beelaha qaar iyo musharaxiinta xildhibaannimadu u jeedinayaan gudiyada heer maamul goboleed ee doorashada. gudoomiyaha gudiga doorashada ee heer federaal Maxamed Xasan Maxamed Ciro ayaa ugu baaqay in qof walba oo cabasho qaba uu maro nidaamka saxda ah ee uusan warbaahinta uun ka dacwoon. Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay gudoomiyaha bal haddii ay cabashooyinku soo gaareen iyo waxa ay ka qabanayaan cabashooyinka. saadogtahay doorashada golaha shacabku hadday bilaamatay waxa ay hawsha u dhaxaysaana ay qabaa'il hawshana ay dhex taalo maamul goboleedyo cabashooyinku way kala duwanaanayaan marka cabashooyin badan waana soo gaadheen oo hadda ilaa dhowr cabasho oo dad ahay wayna soo gaadheen iyagoo inta badan dooduna tahay in sida wax loo maamulay aysan ku qanacsanayn hadda jawaari oo kale lafteedu waa isaga laftiisa ka guud ahaan mar baan khadka telefoonka ku wada xiriiray inkastana weli sarag laakiin aan rajaynayo in ay guddiga kulmi doonaan maalmahan ama saacadaha soo socda. cabashooyinka marka jira waxay noqonayaan in dhowr qaybood loo kala qaado. cabashooyin waa cabashooyin processka ay dad ka cabanayaan, cabashooyinna waa cabashooyin oo la xiriira wax kala riixasho iyo wax saas ah oo u baahan baaritaano inta ka sii badan, laakiin isku soo duub cabashooyin way jiraan. tusaale ahaan waxaa jira cabashooyinka ay ka imanayaan ergooyinka oo kale, beelaha qaar waxay leeyihiin ergada wax dooratay ergadeeni ma ahayn. muxuu yahay adinka doorkiina ku aadan in aad hubisaan doorashooyinkaasi iyo ergooyinku inay yihiin ergooyinkii saxda ahaa, mise howsha waa howl u taala gudiyada doorasho ee heer gobol? horta gudiyada doorashada ee heer maamul gobol iyo kuwa heer federaalba way iskaabayaan, waajibaad ayaana wada saaran, laakiin kuwa heer federaal ayaad moodaa waajibaad gaari inuu sii saaran yahay oo ah in iyagu ay leeyihiin kor joogtaynta iyo hubinta waxani inay sidii saxda ahayd yihiin. kow kuraasta qabaa'il baa iska leh 4.5 ku yimid, kursi walba qabiilkii iska lahaa inay ka timaado 5 xubnood ee xulaysa ergada 101duna ay ka timaado qabiilkii ama jifadii kursiga lahayd oo waliba si siman ay u qaybsadaan oo aan la kala gacan bidixayn. intaas waa inta asaasiyaadka ama mabaadi'da guud ee doorashadu ay ku taagan tahay, waana inta loogu talagalay gudiyadu inay hubiyaan. marka hadda koonfur galbeed oo weli processkii uu ka socdo weli doorasho laakiin aysan ka bilaaban, laakiin maalmaha soo socda rajaynayno, iyo galmudug oo ay doorasho ilaa hadda 5 kursi ka dhacday, Somaliland oo iyana ilaa 10 kursi maraysa. waxaa noo jooga gudiyo heer federaal ah oo waxa hawsha la socday. doorkooduna waa kow waa in markastoo guddiga siidku ama guddiga heer maamul goboleed uu odayaasha iyo qoraya iyo guddiga inuu la joogo kuna kor joogto iyo in waxani ay wixii saxda ahay. marka horta eedaynta ah aan qabiilkii ahayn ayaa ka qayb galay, waa eedaymo culus una baahan baaritaano intaa dheer. waxay noqonaysaa in liisaskii oo dhan dib loo helo. dadka shuruudaha waxaa ka mid ah dadka ergooyinka inuu odayga soo xulaya ergooyinka ama 5 xubnood soo xulaya ee 3 oday labada bulshada rayidka ah ergooyinka soo xulayaan ay ka soo qaadaan magaciisa oo saddexan, sawirkiisa 2 sawir oo taysare, taariikhdii foomam kale laga buuxinayaa oo goobta ku dhashay iyo taariikhda ku dhashay qofka keenay odayga ah ee u saxeexay. marka haddii xitaa dib loo baaro oo baaritaanku uu loo baahdo waa xogo la wada heli karo qofkaasi qofka uu yahay, waayo xitaa contactkiisa waa meesha ku qoran. marka horta waxa intaan la sheegin waa wax la qaban karo oo la hubin karo oo la xaqiijin karo. laakiin beelaha qaar iyadoon doorashooyinka dhicinay ka hadleen waa ay sheegeen, waa ay ka cawdeen. maxaa hadda baaritaan oo aad ku sameynaysaan kuraasta hadda muranka uu ka taagan yahay ee galmudug iyo koonfur galbeed oo aan weli doorasho ka dhicin? waa su'aal muhiima. dhibaatada horta jirta Falastiin waxay tahay waxaa laga yaabaa in qaabka doorashada ama shuruudaheedu aysan dad badan aysan u cadayn, taasina marka ay keenayso qofku meeshii haddii uu wax tabanayo uu caban lahaa inuu markaa uusan haleelin ama aysan
fikirkiisuba uusan ku duwin waxa ugu horeeya waxa weeye haddaad doorashadan aad tahay qof ku lug leh ama qabiilkii kamid ah ama gudiyadii wax soo xulayay kamid ah ama dadkii codeynayay kamid ah ama tartamihiiba aad tahay oo ay cabasho aad dareento ama wax gacan bidixayna sida ugu horeysa aad ku caban karaysaa waa inaad gudiyadii doorashada ee meesha joogay inaad gaarsiiso horta fariintaada sida kuwa heer maamul goboleed iyo kuwa federaalka ah khilaafaadkii laftigoodii baa joog kuwaas haddaad meesha intaad joogta aad gaarso waxaa laga yaabaaba intaadan goobtaba ka bixin in arrintaada wax laga qaban karaba oo aysan sii fogaan haddii marka aad kuwa xal ka weydo in aad kuwii khilaafaadka jira oo heer federaal ah iyo guddigii heer federaal laftigooda oo xorintooda dhexbaa ay xamar tahay marka qofkii marka wuxuu aadayaa warbaahinta kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya Maxamed Xasan Maxamed Ciro oo u ramiyay Falastiin Axmed